haweenka Soomaaliyeed haddii ayaan soo halgamin hadab dawladnimayo qodoon cala lama helin hadab dawladnimayo qodoon cala lama helin bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu maanta uga hadli doono waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed iyo qaabka loo dhiirigelin karo iyada oo lagu guda jiro bisha Maars oo ah bil loo dabaaldego haweenweynaha adduunka guulaha ay gaareen waxaana barnaamijkeena maanta uga hadli doonaa waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed iyo qaabka kor loogu qaadi karo hadday hol qabanayaan hadday hol qabanayaan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada heerarka ugu hooseeya ee adduunka ee isdiiwaangelinta caruurta dugsiyada kaliya 30% caruurta Soomaaliyeed ayaa aada dugsiyada halka caruurtaasi 40 ka mid ah ay yihiin gabdho maxaa sababay in gabdhaha markaasi ay ku yaraadaan goobaha waxbarasho la'aanta haysata gabdhaha Soomaaliyeed sidee kor loogu qaadi karaa caqabadaha jira maxay yihiin ee gabdhaha ay u aadi waayeen dugsiyada su'aalahaas waxaynu uga jawaabi doonaa barnaamijkeena maanta waxaana markaasi la sheegaa in ay tahay dhaqameed gudniin fircooni ah iyo guur degdeg ah sababaha ay gabdhaha uga haraan waxbarashada barnaamijkeena waxaa markaasi ku soo qaadan doonaa sidii looga hortagi lahaa caqabadaha jira faa'iidooyinka ka dhalan karta haddii gabdhaha ay aadaan goobaha waxbarashada sida markaasi bulshada ay wax uga bedeli kartaa haddii ay gabdhaha Soomaaliyeed waxbarashada aadaan barnaamijkeena waxaa maanta inagala qayb galaysa Titooresa Sacdiye Saciid oo ah aasaasaha iyo maamulaha akademiyadda Hana oo markaasi tababar farsamo siisa dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale waxaa barnaamijkeena maanta qayb ka ah Titooresa Maftuux Maxamed Cabdi oo ah Titooresa markaasi ka shaqeysa magaalada Muqdisho isla markaana ah baro wax ka dhigta jaamacadda Jamhuuriya waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah Naciima Cumar Maxamed oo ardayad wax ka baratay jaamacadda Muqdisho isla markaana maraysa sanadkii ugu dambeeyay martida ayaa barnaamijka ku soo dhaweyn doona sidoo kale qadadka taleefanadan dhageystayaasheena waa u furi doona ku soo dhawaada barnaamijkeena gaarka ah dhageystayaal barnaamijka qadadka taleefanada ee idaacadda ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan balse marka hore martideena aynu soo dhaweyno waxaa ugu horeysa Titooresa Sacdiye waxaad nooga warbixisaa qofka aad tahay si dhageystayaasheena ay ku bartaan wad mahadsan tahay farxiyo adiga iyo bahda dalsan radio magacayga waxaa la yiraahdaa Titooresa Sacdiye Siyaad waxaan ku takhasusay tropical medicine waxaan ahay aasaasaha iyo maamulaha macadka Hana Academy oo siiyo xirfado tababaraysan macallimiinta dadka oo civil servantiyada dadka professionalada ah dhalinyarada iyo haweenka xirfadaha gacmaha waxyaabaha loo yaqaan STEM oo science technology engineering shaqooyin badan ayaan runtii ka qabanaa macadka marka halkaas waan kusoo koobi lahaa soo dhawow walaashay Naciima aad baad u mahadsan tahay walaashay Farxiya Muraad aadna ugu mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan ee idaacadda ee markaasi ay noo qabatay magaceygana waa Naciima Cumar Maxamed dhigata jaamacadda Muqdisho qaasatan waxaan aad u bartaa fiildiga la yiraahdo social work and social worker sanad afraad aad mahadsantihiin baa haweenka Soomaaliyeed haddii ayaan soo halgamin haweenka Soomaaliyeed haddii ayaan soo halgamin hadab dawladnimayo qodoon cala lama helin hadab dawladnimayo qodoon cala lama helin wax badan ayaa laga qabtay sanadihii la soo dhaafay sidii kor loogu qaadi lahaa isdiiwaangelinta caruurta ee dugsiyada iyada oo markaasi la kaashanayo dawladda federaalka iyo saaxiibada horumarinta dawladda Mareykanka tusaale ahaan iyada oo sii maraysa barnaamijkeeda waxbarashada ee USAID bar ama baro iyo taageerada mashruuca UK FCDO ee ay maalgeliso mashruuca waxbarashada ee hablaha Soomaaliyeed
ujeedkuna yahay in la kordhiyo diiwaangelinta gaar ahaan ardayda gabdhaha ah. Bar ama bara ayaa waxa uu hiigsanayaa in ay gaarsiiyaan waxbarasho tayo leh caruurta da'doodu ay weyn tahay ee aan aadin dugsiyada, iyada oo suurtagelinaysa in ay dib ugu biiraan nidaamka waxbarashada tooska ah. Bar ama baro waxbarashadeeda ayaa dedejiyay waxa ayna la jaan qaadaa aragtida mudnaanta leh ee waxbarashada qaranka Soomaaliya. Dhinaca kale, mashruuca EGIS waxa uu siinayaa in ka badan 12,000 oo haween dhalinyaro ah oo aan waxbaranin akhriska iyo qoraalka, xisaabta iyo xirfad nololeed lagama maarmaan ah, kuwaasi oo kordhin doona awoodda wax soo saarka. Inta uu socdo mashruucan, 40,000 oo haween dhalinyaro ah ayaa heli doona waxbarasho asaasi ah oo ay weheliyaan fursado dhaqaale iyo bulsho, taas oo kor u qaadaysa awoodda iyo shaqada iyo midda bulshada. waatahay dhegeystayaal, barnaamijkeena ayaynu guda gelaynaa. Soo dhawow Toresa Sacdiya, waa maxay sababta gabdhaha aysan u aadin dugsiyada? Hadra waxaa jirto in aan fahamsanahay taariikhda wadankeena iyo dadkeena ay leeyihiin. haddii runta la isku sheego gabdhaha percentage-kooda haddii loo fiiriyo ragga kama yarin, in balse waxaaba lagu xantaa inay dumarka badan yihiin. su-aashaada ah sababta gabdhaha ee iskuulaadka waxbarashada ugu yar yihiin waxaa ka mid ah gabdhaheennii waxbartay mase gabdhaheennii horyaalka ummadda u ahaa oo aan run ahaantii la siinin fursad ay ummaddii ugu adeegi lahaayeen. gabdhaha badanaa waxaa laga dhaadhiciyaa gabar baa tahay gurbaa kuu dambayn doonto, waxyaabahaasoo kaleeto, iyo gabdhihiioo yaraan lagu guursanayo iyo caqabado kaleetooda run ahaantii wajahayso gabdhaha. haddaad dhinac u eegtid runtii gabdhaha Soomaaliyeed, especially hooyooyinka Soomaaliyeed, lafdhabarka ummadeenay ahaayeen. suuqyada waxa wax ku iibinayo hooyooyin Soomaaliyeed waaye. ummadana waxa u qabtay runtii, especially haddii aan gaar ahaan u eegno waqtigii dagaalada jireen, waxay ahaayeen hooyooyin. marka dhibaatadana haysataa waxay tahay waxaa nagu yar haweenka noo fadhiyo meelaha go'aamada lagu gaaro. hadda waad aragtay doorashooyin baa socdo, gabdhihii baa nagu yar. wasaaradda waxbarashada oo kale bal fiiri, wasaaradda haddaad fiirisid gabdhaha nagu yar. jaamacadda jamhuuriyadda wax ka dhigi jiray, waxaan aaminsanahay inaan ahaa one of the very few gabdho ka dhigayay waqtiga. goobaha waxbarasho iskuulaadka aad bay gabdhaha ugu yar yihiin, jaamacadaha sidoo kale way ku yar yihiin, wasaaradaha haddaad fiirisid sidoo kale way ku yar yihiin. marka ummadda dowladda oo kale haddaad fiirisid way ku yar yihiin. goobooyinka kambaniyada waaweyn oo private-ka loo leeyahay haddaad fiirisid ankee gabdhaha way ku yar yihiin. nin kastana gabar buu dhalay, gabar baa la dhalatay, xaaska uu qabo waa gabar, hooyaa dhashay. markii runta ay timaadane waxaa la rabaa gabdhihii inaa jidadka ay ka leexdaan, gadaal ay aadaan, fursado aanan la siinin. marka gabadha yartahoo Soomaaliyeed oo waxbaranayso ma haysato role model ku filan, qof ay ku daysato ay dhahdo heblaayo hebel oo heerkaas waxbarasho ka gaartay iyadoo kale ayaan dan aan rajayn lahaa mustaqbalka in aan noqdo. marka way nagu yar yihiin. marka waxaan culeyskana haysto haddii aan gabdhaha nahay ayaa waxay tahay in aanan joogin meelaha go'aanka lagu gaarayo oo wax lagu qaybsanayo. waad mahadsan tahay Dr. Maftuux. soo dhawow, adiga maxay kula tahay in gabdhaha ay ugu yar yihiin goobaha waxbarashada? bismillaah, imrad aad u mahadsan tahay. sababta keenaysa horta aad loo wada fahamsan yahay awal, laakiin hadda qiyaasa inay aad marka waxaan ognahay hooyooyinka waxaa badanaa sababo hooyooyinka mostly aan wax baranin oo awalkii hore aan waxbarashada aad loogu buuxin oo ay waalidka bisha al hormarina instead of dumarka soo qaadan lahaa. saas la ajligeed hooyooyinka hadda waxay keeneen badankood inay raacaan wadadaas, laakiin dadka yar hadda wax fahmay media waxay keeneen inay isbedelo badan ku sameeyaan guriyihii ee dadkii wax fahmaan. isbedelkaas marka wuxuu noo fududeeyay dumarka inay had soo baxaan. hadda galaasyada waxaa arkaysaa jaamacadaha
inay gabdhihii yar yihiin markaa fiirisid meerna aadaysa waxaa laga yaabaa gabar dhammi inaysan dhigin oo laga yaabo galaas hal in laga helo sidoo kale telecommunicationka IT-ga dhankeeda aad sidoo kale hal gabar ama laba gabar ku arkaysa dhanka caafimaadka gabdhihii u badan yihiin ay sagooniyaha ay ku hayaan badankood marka waxaan hadda sii jecelnahay inay kasii qaban doonaan intaan barnaamijkan baraarujintan iyo waxaan inta socdo oo aad ugu mahadcelinayna TV-ga dalsan iyo qaabada dadka kula jirabo in la sii horumariyo oo ay wax fahmi doonaan bulshadeena insha Allah soo dhawow Naciima adiga sidee kula tahay in ay sababtay in gabdhihii iskuulada ama goobaha waxbarashada ay ku yaraadaan وما سنتا باي فرحية ولهانتي عقبضة فربدن يعني أيا جرا وقبلها markaasi ku xeedhan in ay maxaa la yiraahdaa waxbarashadii ay ku yaraadaan ama aysan aadinba caqabadahaasi weyn yani waxaa ka mid oo kale ah gabdhihii tusaale oo kale waxaa jira mogtahay dhaqanka ama Soomaalideena dhaqanka aniga leenahay oo kale waa dhaqan mar walba dhiirigelinayo in yani gabdhaha aan waxba la barnin oo kale inkastoo waayadan dambe ka soo roonaanayso oo gabdhihii mudooyinkan dambe ee waxbarashadii aad ay ugu fiican yihiin oo wiilashii ilaa xad aan la baratamayno still haddana waxaa dareemaynaa inaan weli gaab halkaas uu naga jiro oo gabdhihii weli aysan markaasi ka muuqanin xaggii waxbarashadii iyo sidii wiilashii dhaqdhaqaaqi qaabkii u sameynayeen kale weli inaysan muuqanin haddana weli still haddana waxaa dareemaynaa waalidiintiina qaar Soomaaliyeed in laftirkooda weli san ay fahamsaneen muhiimadda markaasi ay leeyihiin gabdhaha inay wax ay bartaan gabdhaha yani waxbarashadooda run ahaantii wax badan waxay u tahay faa'iido bulshadaasi iyo sidoo kale dadkaasi markaasi iyada ku xeedhanba familkeedii iyo teedaba markii laga soo tago teedaba ugu muhiimsanba tan kale caqabadaha ugu weyn anigaas dhihi karo gabdhaha waxa waaye waxyaabaha aadka markaasi xanibaayo oo inay waxbarashadii aysan u badnaanina waxay tahay waxyaabaha ugu badan ee dabarka ku xiraya waxay tahay dhaqanka Soomaaliga sida hada hore kuugu sheegay oo ah dhaqankeena Soomaaliga inuusan dhiirigelin waalidiintii laftirkooda xitaa wacyigoodii ama wacaalkoodii xitaa uu aad u hooseeyo inaysan laftirkooda maxalliga ku baraarugsanin gabadhii mar walba markii wiilka iyo ama wiilasha ama xagga dumarka ama gabdhaha loo fiiriyo oo kale in mar walba la doorbido gabadha inay maxaa la yiraahdaa wiilka in mar walba priority hala siiyo wiilka la dhaho asiga baxa baranay gabadha maxay ka baranaysaa waa gabar hadhow reer yeelanayso ama gurigeeda un ka shaqaynayso reer yeelanaysa iyo gurigeeda ka shaqaynaysaba waxaa ka weynba gabadhaas yani wax baranayso waxyaabaha kale oo caqabada yani dhihi karo way dabrayaan gabdhaheena Soomaaliyeed waxay tahay in anaka laftirkeeno aan isdareemsiinayno wax la yiraahdo inaan isliidno laftirkeena inaan isliidno oo ah ma wixii wiilba sameeyay baan sameyn karnaa oo kale sida wiilasha yani dhaqaaqada ay sameyn karaan meelaha ay aadi karaan ay gali karaan waxyaabaha oo kale inaan sameyn karin oo kale sector sida hadda ay sheegtay oo kale meelaha shaqooyinka marka aragtid goobaha waxbarashada oo kale marka aragtid goobaha markaasi oo dawladda oo kale wasaaradaha iyo marka aragtid mostly waxa u badan waxa ka shaqeeya waa rag waxa arkaysaa dumarka inay aad ugu yar yihiin iskuulaadka oo kale macallimiinta oo kale markii loo fiiriyo oo kale inay dumarka ay ku yar yihiin so caqabado kale asdhihi karana waxay tahay familka hadii gabadha ay ka soo jeedo family markaasi oo poor family ah oo faqri ah ama gabadhii markaasi aysan haysanin oo kale waxyaabaha badanaa waxa waa caqabada يعني أنا قن كرت جوادي إن إنسان وحبرشدي كان يجبته أما مركز يقول دق سجشة أما في ملك لفتر كيس إنسان أو كلا أنت يرى له هست أو كلا إن ويل كلا قدر بيضو أو جوادي سكده هو يدو ير أو كلا إن مركزي أو كلا لو جوري أو كلا child marriage أو كلا لقصة ما يجبنا أما forced marriage واحد يراد أو كلا والله قصبه أو كلا قفل السيو مركا أنا أنت أساس لي كرا وحيابها أو عقبتها كوكل بدنا ويجران laga soo bilaabo hooyooyinka maanta ee aadka u dadaalay suuqyada beeraha iyo haweenka taariikhda gale ee la dagaalanka gumaysiga haweenka Soomaaliyeed waxa ay door firfircoon oo muhiim ah ka soo qaateen saameynta taariikhda dalka laga soo bilaabo mujtamaca ka hor gumaystaha ilaa gumaysigii iyo dagaaladii sokeeyay haweenka Soomaaliyeed waxa ay soo bandhigeen adkeysi iyaga oo u dhabar adeegay duruufihii jiray waxa ayna ka shaqeeyeen safka hore si ay ugu adeegaan naftooda iyo tan ubadkooda
dhegeystayaasheena ayaan siin doonaa fursad si ay markaas uga aragti dhiibtaan waxbarashada iyo gabdhaha. Soo dhawow dhegeysta magacaaga. waa ugu mahadsantahay walaashay adiga walaalaha stuudiga ula sugan bahda dalsan saaxiibada dhegeysanaya. waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. magacayga waa Xasan Buulla Xasan, degmada Hiliwa, xaafadda suuqa aan joogaa. Bal aragtidaada ka dhiibo waxbarashada in ay gabdhaha ku yaraadaan. in badan waxaa waa gabdhaha Soomaaliyeed waxaad moodaa walaashay in aan tixgelin gooni ah la siinin oo gabdhaha inta badan waalidiinta ama dadka bulshada Soomaaliyeed dhadoo badanba aad moodaa in ay hoos u dhigaan oo xoogoo liidaan oo ay muhiimadana ka dhigaan wiilasha keliya in ay waxbarashadii ay la beegsadaan. marka ani ma qabo aragtidaas. gabdhaha Soomaaliyeed kulley sidaan wada ognahay taariikhda dalkana walaashay sida ay uga sheekaynaysay waxaa waaye taariikh door muhiim ay ka qaateen sida gumaystihii ilaa iyo haddeertaan aan joogno. haweenka Soomaalida inta tixgelin gaar ah ma siiso. marka kulley waxaa waaye aniga waxaan dhihi lahaa hablaha Soomaaliyeed tixgelin gooni naga mudan yihiin sababtoo way noo dhexeen wayna dhaleen waan nala dhasheen. marka aniga waxaan dhihi lahaa Soomaalida inta badan waxaa waaye halsiyaanaan dhihi lahaa muhiimada koowaad gabdhaha Soomaaliyeed doorka ay leeyihiin ama siyaasad ha noqoto ama ha noqoto arrimaha bulshada oo kale wax walba ay leeyihiin xaqooda inaan la duusin oo xaqooda nala siiyo aad baan u qabaa. marka adiga farsamada waxda dalsan waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. innagana galab wanaagsan ayaan ku leenahay dhegeystayaal. barnaamijka waad ka soo qayb qaadan kartaan idinka oo soo wacaya leenka idaacadda. dhegeystahan xiga ayaan siin doonaa qadka taleefanka. soo dhawow dhegeyste. aadan u dhaw walaashay adiga iyo farsamada iyo gabdhaha Soomaaliyeed meel walbay joogaan. noosan Xasan Buulla Xasan iga soo yaray dhammaantiin waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. magacaygu waa Fahad Maxamed Ali Saad Cabdi, degmada Kaaraan bartamaha Burkadkiisa aan ku suganaa walaashay. hay bal barnaamijka ka aragti dhiibo. walaashay horta aad u mahadsantahay. aadan ugu faraxsana horta inaan barnaamij laga hadlaayo haweenkeena ama dumarka aan soo kala kalabta aadan farxad ay tahay. sababta maamooyinka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed walaalaheen markay yihiin waxaan aaminsanahay inay lafdabar yihiin. meelay dumar ay ka maqan tahay waxaan aaminsanahay meeshaasna nuur ma lahan aaminsanahay. marka waxaan aaminsanahay waxbarasho iskabataa wax walba ay u qalmaan. marka waxyaabaha si yareynaya waxbarashadana waxay tahay aaminsanahay inay guriga hoosha aad ugu badato. marka gabdhahayna waxaa laga yaabaa inay guriga hoosha waxyaaba badan ee mashquulkaasi iska samaynay. waxaan aaminsanahay waxbarashaha tiliira ragkeena iyo dumarka tiliira maskixiyan iyo qofka dadka dadaal badan tiliira حتى وحتى واجي وحتى هو مركي ولاد مركان دغني جيرنا مركي تبتي دحay tibti sare markaan dhiganayna ana aaminsanahay gabdhaha ugu horeeyay kaalmaha kala marka ana aaminsanahay waxbarashada tiliiraan maskixiyan gabdhaha aad nooga maskax fiican aqoon tiliiraan markii waxbarashada meesha maatane gabdhaha aad nooga tirtirayeen. marka laakiin dhibaatada meesha culaadka jira waxay tahay ragga shaqooyin waxyaabo kale wadankii waxa la diiday Allah taala iska taa. marka dumarku waxay ku qasabtay inay guriga hool ay ka qabtaan. marka ana aaminsanahay waxbarashada meesha imaato dumarka 100% ama haweenkeena ana aaminsanahay inay aad ragga uga tirtirayeen ay nooga fiican. marka laakiin ana aaminsanahay maamooyinkeena gabdhaheena Soomaaliyeed 100% meel walbay joogaan horta waxaan leeyahay nabad ku joogaan leenahay. sababtoo haddii ayba ananka maamaheena dhalin ama hooyaheena dhali lahayn ama gabar aan walaalo lahaa lahayn oo guriga hoosha naga qaba lahayn waxaan aaminsanahay meelaheena aan joogi lahayn oo waxba matari lahayn. marka waxaan aaminsanahay ragga daftirkooda waxaa laga yaabaa inay gabar ay u lijisto gabar ay wax walba hoosha ay u qabato. marka gabdhahayna waxaan leenahay waxbarashada waxyaabaha ku yaraynayo hoosha guriga inay aad culaadkaas ka imaanaysa. marka atiliira waxbarashada atiliira gabdhahayna aad inooga aqoon badan yihiin wayna naga maskax badan yihiin. marka waxaan leeyahay dhalinyarada fursad haddiyaan gabdhahayna dumarkeenana fursadaas yaan leeyahay kala wanaagsan. innagana galab wanaagsan ayaan ku leenahay. barnaamijkeena ayaynu ku guda jirnaaye qaybaheenii su'aalaha haddii aynu u gudubno soo dhawow markale Titooreysa Sacdiya. ma isleedahay mashaariicda horumarinta iyo waxqabadyada waxay dhiirigelin karaan in markaas la diiwaan geliyo carruurta Soomaaliyeed mana loo baahan yahay in la hubiyo in cunug walba oo Soomaaliyeed waxbarasho uu helo. waan ugu raacsanahay. waxaa jirto barnaamij la dhaho bar amba baro oo annaga iyo maalgeliyeen USAID oo aan ka wadno Hirshabelle State gaar ahaan Balcad iyo Jowhar. mashruucaas waxaa kaloo laga wadaa magaalada Banaadir, Kismaayo
iyo baydhaba iyo magaalooyinka kale ku heeraarsan run ahaantii annaga ka ahaan ka macadkeena oo Hano Academy mas-uuliyad weyn baan isa saarnay sababtoo ah dadkii nagu aaminay inaan shaqadan u qabanno oo dowladda Soomaaliya iyo USAID-ka iyo baanradii kaletood oo shaqadii aan la qabanaynay runtii juhdi weyn baan gelinay dhalinyarada hadda wax ka barato waxbarashada waxaa loogu talagalay waxaa loo yaqaano ABE oo ah accelerated basic accelerated education oo la soo gaabiyo runtii cunugii sanad uu ku baran lahaa ayaa 6 bilood lagu siinayaa halkii sanana 2 sano waxbarashadeedu ayuu qaadanaya waxaana loogu talagalay caruurta oo nasiibka aan ugu yeelanin inay wax bartaan oo waxbarashada ka waaweynaadeen mase ilmo wax yar barteen laakiin sii wadi waayeen waxbarashada anaga hadda waxaan haynaa 47% ayay marayaan gabdhaha oo dhigto barnaamijkan la yiraahdo bar amba baro muhiimana u ahayd runtii in aan dhinaca macallimiinta xooga aan saarno marka gadaal baan ka sharxi doonaa sababaha siyaabaha aan ugu guuleysan inaan gabdho macallimiin aan helno gabdhaha oo hadda iskuulka noo dhigto 47% boqolkiiba 53 waa wiilal runtii waa soo dhaweynay sababtan u soo dhaweynay ayaa waxay ahayd gabdho badan oo macallimiin ah ayaan helnay boqolkiiba 37 ayaa gabdho noo ahaayeen sababta ay taas ku suurtoodana waxay ahayd aniga iyo gabdhaha ila shaqeeyo oo run ahaantii iyo gabdhihii kale todo reer Hirshabeelle ahaayeen oo run ahaantii dhexda u xirtay inaan gabdho soo saarno fursado aan u suubino oo aan intii karaankeena ah oo aan dadaali karno aan u dadaalnay gabdhihii reer Hirshabeelle inay codsiyo soo qortaan iyada soo diyaarsadaan tusino raggeena Soomaaliyeed in ay jiraan gabdho qualified ah oo wax barteen rabaan inay ummadana adeegaan oo shaqada qabtaan sida uu ogsoon tahay gabdhaha oo Soomaaliyeed runtii waa hooyooyinka ilmahooda guryaha wax ku bartaan taariikh yar ayaan kaaga sheekeynayaa gabdhaha reer Hirshabeelle ayaga ayaa markii dagaalka uu dhacay ka bacdi gurigahooda carruurta wax ku bari jireen gabdhaha reer Hirshabeelle ayaa dhiseen iskuul ku horeeyay oo Jowhar ahaa marka runtii markii wixii kala kaceen ragba allaylehe maamulkii la wareegay taariikhdaas ayaan bartay anoo taas ka duulayo iyo hay'adaha kaleetooda internationalka oo rabaan inay caawiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeena federaalka iyo dowladda Hirshabeelle runtii waxaa tahay wax lagu faano in aan soo saarnay 37 gabdhood oo macallimiin ah in aan soo saarnay boqolkiiba 47 gabdhood oo wax baranayo insha Allah mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa inay 50% qato marka waxaan dhihi lahaa gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan gabdho kaligood wax ma qaban karaan ragga kaligoodna waxbana ma qaban karaan marka wax qabashada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba waa loo baahan yahay si wada sinaan ah si wada jir ah si iskaashi leh si walaaltinimo iyo wax qabad ah in ummadda Soomaaliyeed loo wada adeego waay haddii aan u diidno gabdhaheena Soomaaliyeed inay wax qabtaan waa inay ogaadaan ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 50 ayay yihiin dad dhaawac ah oo horumarka wadamada kale ee gaarsiisan yihiin in gaari karo waayo waxaad ku fiirisaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala 2 indhood u siiyay Soomaha bal ka warna qofkii hal il leh iyo qofkii 2 il leh qofkeeba xoogaa shaqadii ay u fududahay qofka dabcan qofka 2 indhood leh gabdhaha iyo wiilashana waa sidoo kale ka soo qaad 2 gacmood
gacantaada midigtan waa u baahan tahay gacantaada bidixdan waa u baahan tahay gabdhaheenna waa sidaa raggeenna gabdhaha way u baahan yihiin waxaan rabaa in ay maskaxdooda ka dhaadhiciyaan muhiimadda ay leedahay gabar wax la baro gabadha wax la baro warheedhe oolaadaada beri ay wax ku baraysaa haddii xaaskaaga ilaahay ka dhigo hooyo caruurteeda wax bari kartee naqanaysaa hadduu ay tahay walaashaa kula dhalatane waxaa laga yaabaa fursad shaqo inay hesho oo culeyskii waalidkaa aad ku biili jirtay mase ku saarnaa jirtay ayay wax kaa qaadaysaa haddana dhinaca kale u rog hadday tahay gabarha jiraankaaga ah oo kor soomaalinimo aad ka wadaagtiin canshuur baa laga qaadayaa gabadhaas canshuurta laga qaadana jid baa lagu dhisayaayo waxaa lagu dhisayaa iskuulaad waxaa lagu dhisaa isbitaal danta marka aad ka leedahayaa waxay tahay gabadhaas horumarkeeda waa horumarkaaga marka waa muhim bay noo tahay inaan gabdhaha wax barno muhim bay noo tahay wiilasheennana inaan wax barno oo aan labadoodiiba aan si aanan hagar ku jirin aynu ku jirin gabar weeye iska daaye jikaa u dambayn doonta yaa waxbarashadeeda hadda waxba la soo masaa'idinaysa yaan lacag iyo waqti isaga dhuminina mase guriga aan hoosha u dirsano hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay ayaga hooshooda qabsadaan mase wiilasha ay dhaleen iyo ayaga in loo qof kastaba waqtigeeda oo hoosha u qabto si gabdhaha fursad ay u helaan wiil waxyar ka hor kol sheega soo galay wuxuu nagu dhahay waxaa laga yaabaa gabdhaha wax u baran waayeen in ay hooshii guriga ay ka farabadnaadeen dabcan guri hore kama dhammaato laakiin hool intay faca kaa reebi lahayd oo mase gabadhaadii ay faceed ka reebi lahayd waxaa loo baahan yahay si wada sinaan ah guriga hooshiisa in loo wada qabto oo aan lagu fiirsan hal qof kaas gabdhaha oo rajada ah mase gabdhaha ugu waaweyn marka waxaa loo baahan yahay guriga hoosha yaalana in si sinaan ah loo qabto si sinaan ah oo cadaalad ay ku jirtana oolaada loo baro waa waajib islaamiyan ah oo diinteena na farayso waxaana loo baahan yahay dhaqan Soomaaliyeed inay noo noqoto waayo bariga dagaalada inteena dhicin ka hor gabdhaheen waxbarashadooda aad bay u fiicnaayeen waad mahadsan tahay Torres Sacdiya wuxuu soo laaban doonaa soo dhawo Torres Muftuux maxay tahay ama sidee loo hubin karaa in cunug walba oo Soomaali ah uu iskoolka aado waxyaada u maasan tahay barnaamijkan hadda aad ku qortay war ama bara ah oo socdo wuxuu sababi karaa ama baraarujin fiican u noqon karaa bulshada Soomaaliyeed siiba qaasatan dad buurka ah oo aan awoodin inay gabdhihii geeyaan ee door bidaan inay wiilashii ay noqon kartaa cadaalad u dhaxayn karta oo hooyadii hadaysan awoodin in labadooda ka wada bixiso barnaamijkan lagu baraarujiyo inay waxbarashada wada aadaan si siman ay u helaan tusaale hooyooyinka waxay leeyihiin markii iskuulka la aado kaleeto ay wiilasha u diraan gabdhihii waxay leeyihiin sababtoo ah guriga waxay ka caawinayaan hoolihii laga qabanayay looga baahnaa hooyadii lacala hadday shaqaysa xataa ama banaanka waxay leedahay gabadhii ay caawinaysa midka waxbarasho aadaya marka barnaamijkan wuxuu fursad weyn siin doonaa in ay gabdhihii helaan waxbarasho ibka weyn oo sii jira waxaa waaye horta gabdhaha waxbarashada markay lacala xataa ay helaan oo ay wax bartaan waxay sameeyaan inaysan bulshadiisa u dhexgelin jaamacaddii ka baxayaan ama iskuulkii ka baxayaan guurey sugay ama waxay ku mashquuleen waxyaabo aan macno weyn u suubinaynin oo horumarkeeda ka shaqaynaynin marka iyada naftirkeeda waxay u baahan yihiin in loo sheego in challenge nafteeda ay la galaan oo wiilasha is waxba ku dheereen wixii wiil uu qaban karo aqoon karto tusaale waxa ku fiican wariye isaageeda la joogo TV ama meesha ka shaqaynayso saas la dhigeed qofkii hadduu soo bartay saxaafadii ma aha inuu guriga joogo ama uu soo bartay caafimaad ma aha inuu guriga fadhiisto waxa waa inay wax raadiso ay isku daydo xataa haday shaqayso si volunteer ah marka intaas waxay keeni kartaa ama ay barnaamij u noqon kartaa gabdhihii ka dambeeyay ama ka yaryaraa oo guriga joogay oo wax baranayeen waxay arkayaan walaasheed ka weyn oo baxday ama wixii ay ku bartay ku camal falayso ama magaalada ku jirto faa'iido leedahay ogaanayaan kadibna hooyadii xataa waxay sii jeclaan kartaa inay gabdhaha sa ognahay gabdhaha waxbarashada aad ay ugu yihiin oo markaa jaamacadda ama iskuul la wada dhigto
wiilasha moo waxay ku mashquulaan dad football ama something else laakiin inay waxbarashada inta ku qaataan ama jaacadka ama iskuulka imaadaan inay wixii dib ugu celiyaan memorize u sameeyaan marka waalidka intaas waxaan jeclaan lahaa inay u noqoto dhiirigelin oo ay simaan gabdhihii iyo wiilashii waxbarashadii u dhexeeyey inay si sax u wada siiyaan awooddeesa jirinna hadda waxaa imaaday barnaamijyo lagu caawinayo oo dadkii aana awoodin hadda macnaheedu kale sacdiyo waxay ka shaqeynaysaa sacdiyo shabeelo kaleeto gabdhihii waxay sameeyeen iskuulkii eliseen laakiin hadda magacii waxaa qaatay rag ma jeedo always aasaaska guriga waxaa ah dumar marka waxaa loo baahan yahay in aad wax loo baro dumar waad mahadsan tahay inta badan kala bar dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dhulka miyiga iyadoo bulshooyinka deegaanadaas ay u badan yihiin dad reer guura ah oo kolba meel u guura si ay biyo iyo baad u raadsadaan bulshooyinkaasi taasi oo qasabtay in caruur badan ay waxbarashada ka baaqdaan barnaamijka bar ama baro ee USAID waxa uu bixin doonaa fursado waxbarasho oo habboon dabacsan la isku haleyn karo oo tayo leh iyada oo diiradda la saarayo horumarinta natiijooyinka barashada ee ardayda ee akhriska iyo xisaabta weli barnaamijkeeni gaarka ahaa ayaynu ku guda jirnaa oo markaasi aynu uga hadlaynay waxbarashada gabdhaha iyo qaabka kor loogu qaadi karo dhageystahan qadka ku jira ayaan waqti siin doonaa dhageystayaal barnaamijka waad soo wici kartaan si aad uga qayb qaadataan halow dhageyste salaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawow magacaaga iyo degmadaad naga soo wacayso وأنا magacayga waxaa waaye cabdiqaadir oo jooga degmada kaaraan haye cabdiqaadir bal aragti ahaan sideed u aragtaa in gabdhaha dugsiyada ay aada ugu yaraadaan gabdhaheed goobaha waxbarashada in gabdhaha ay ku yaraadaan sideed u aragtaa maxayse kula tahay qaabka loo kordhin karo waxay ila tahay horta gabdhaha waxbarashada dhinaca caafimaadka u badan yarta sidoo hore garan dhanka maadiga u badan yihiin gabdhaha macnaha dhan kale oon wax laga barmaa jirta gabdhaha maana hal dhinacay badan gabdhahana waxaa waaye waxyaabaha maskaxda ka badan maskax badan baan ragga maayo ya gabdhaha maskax badan haddii aan ragga maayo waad mahadsan tahay dhegeyste barnaamijkeena ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal dhegeystaha xiga halow dhegeyste waanu ka xunnaa dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay markan waxaa soo dhaweyneynaa naciima soo dhawow maxaad is leedahay caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ka haysta waxbarashada dalka maasantabayo farxiya caqabadaha kale yacni ugu waaweyn ee xagga markaasi ka haysta wadankeena waxaa isdhihi karaa tusaale oo kale waxaa jira oo kale maxaa la yidhahdaa dowladdii oo kale mise goobihii halka waxbarashada oo kale in yacni mostly oo wax la yidhaahdo discrimination oo kale ama gabdhaheena dumarkeena ay yihiin kuwo yacni ay ka mid yihiin ama lagu tiriyaba bulshada qeyb social marginalization mise social marginalized wax la yidhaahdo tan kale waxa la yidhahdee si guud markii loo fiiriyo dhaqankeena Soomaaliyeed ama bulshadeena Soomaaliyeed waxaa jirta wax la yiraahdo asigana gender stereotype oo laga aaminsan yahay dumarkeena so gender stereotype kaasina waxa waaye waa qalad fahan oo xagga dumarkii ama hablihii laga fahamsan yahay tusaale oo kale gabadhii oo kale si kasta ay ahaato ama goobeedii ama waxbarashadeedii oo kale in yacni lisdhaho oo kale haddee haween oo maanta wax barato oo kale meel yacni ay gaari kartaa ama bulsho ama ay garsiin kartaa ama nafsadeeda ay garsiin kartaa inaysan jirin oo kale in yacni ay u dareemaan bulshada laftirkooda tan kale waxyaabaha kale oo yacni ugu weyn haddana oo caqabada u ah ayaa waxay tahay waalidkii laftirkooda iyaga laftirkooda waxaad arkaysaa inay iyaga ay aaminsan yihiin dumarka gabdhaha wax baranayo oo kale ama iskuulaadkaas aadayo oo kale sometimes oo kale gabar maxay ka baranaysaa oo kale waqtiga iyo waxa anaka lacagteena ama energy-geena aan ugu luminayna maxay tahay oo kale inay isdhahaan oo kale gabadhii markay iyadoo ku ugu roonay waxbarashada aada markaas
iyagoo cagajiid ama iyadoo loo baahnayn ama loo diraayo oo kale inay maxaa la yidhahdaa markii hadhow waxbarashadeedii gabadhi ay ka imaato oo kale howlo badan ama shaqooyin badan gurigii haddana u taalo ay qabanayso markaas meesha waxaa ka baxayo oo kale doorkii ama roolkii gabadhii ay ka qayb qaadan lahayd ama waxay ku akhrisan lahayd ama ay maxaa la yidhahdaa wax soo saar productivity fiican ee maskaxdeeda ay ku soo saari lahayd inuu halkaas uu ka baxo ayaa meesha yacni ka dhalanayo oo ka imaanaya mideeda kale gabdhaheena laftirkeena aan nagu jirto wax la yidhaahdo oo aaminaad ah oo is aaminsiinayno waxa aan markaa anaga aan baranayno kale hadda kale waxba glass baa bartaa oo kale glasska oo kale mostly wiilasheena iyo gabdhaha oo kale balancegeena aad uu isugu dhow yahay oo iskugu dheeli tiranahay markii la fiiriyo class participation oo kale ama discussionka debate-ka oo kale markii la sameynayo oo kale waxaa arkaysaa gabdhihii iyagoo wax badan ka guuxaya maskaxdooda ama fikiro badan ama afkaaro badan ay ku jirto niyadooda in aysan ka hadli karin ama ay ka doodi karin waxa fikirkooda ku jiro oo kale aysan gadi karin ama ay sheegi karin yara la cabsato iyadoo markaasi mararka qaar u geysanayso oo kale dumar baa tahay codkaada kor ha u qaadin ama waxaa sheegaysid oo kale calaashaan yacni isliiditaan iyada lafsadeeda ay isliidayso oo kale caqabadaha kale ee ugu weyn ee kaljarkeena uu yacni saameynta gabdhaheena uu ku reeba ayaa waxay tahay waxa la yidhahda FGM-ka gudniinka fircooniga waayo gudniinka fircooniga caqabada fara badan oo dumarkeena ama gabdhaheena oo Soomaaliyeed aad uga haya oo ah inkastoo dawaayadan dambe maxaa la yiraahdaa laga ilbaxay oo wax badan waalidiintii ay ka ilbaxeen ay ogyihiin laakiin gabdhihii hore ama waalidiinta qaarkood xitaa wali ay ku dambeeysaa fikirka noocaas oo kale ah soo gabdhaha marka yacni xaaladaasi ama kaljarkaasi lagu soo ablay gareeyay ee lagu soo dabaqay ayaa waxay tahay in mararka qaarkood oo kale caafimaad darro oo kale gabadhii inay dareento oo kale xiliyada markaasi oo kale menstrual cycle-keeda oo kale markuu imaan inta goobaha waxbarashada ay joogto oo kale inay wax badan meeshaas oo kale gabadhii ay gaab ay ka gasho waxaa laga yaabaa 2 isbuuc oo kale gabadhii inay imaaweysa gabdho qaar waxaa jiraan oo kale maamooyin ah ama la qabo oo kale hooyooyin ah xiliyadaas oo kale markaasi ay dhalayaan oo kale iyaga laftirkooda inay ku dhibtoodaan soo marka gabadhii muddooyinka intaas يعني waxaa galayo gaab fara badan oo waxbarashadeedii ka galayo oo waxaa laga yaabaa waxbarashadii muddo inay soo aadi weyso oo sidaasi sanadkii markaasi jaamacadii ama iskuulaadkii ay uga haraan oo kale kadibna ay iska dhahdo oo kale bis halaan ka badan waxaa sii wadi kartid ma lahan waa laga tagay waxaaga ciyaalkaadii waxaaga iska sii xanaaneyso mise iska sii hayso iyadoo markaasi wax badan maskaxdeedii ama maankeedii aysan xambaarsaneen waxay markaasi familkeedii ama nusadeedii ku hormarisaa ama ay ku dhiirigelisaa ama aysan heeninba marka caqabadahaas oo kale intaasaan isdhihi karaa waad mahadsan tahay dhegeystaha xiga halow dhegeyste soo dhawow magacaagii iyo meeshaad joogtay iyo barnaamijka aragtida aad ka dhiibanayso magacayga waxaa waaye maxamed oo jooga degmada kaaraan haye maxamed bal aragtidaada maxamed oo jooga degmada kaaraan waa may haddii aan barnaamijka hore u galane gabdhaha horta waxaa xagga guurka iyo ko wax dhigaan guur ku degdegayaan mafahanti iyo ko oo weli barnaamijka aanan iyo ko wax dhinac barteen oo lamadoo sano camal dhigaan bay iska aroosayaan banimana iska aroosayaan kaliya wax baran waqtiga ku degdegayaan basidoor dhan bay filan waad mahadsan tahay dhegeystay waxaan soo dhaweynaynaa Dr. Sacdiya bal waxaad inooga sharaxdaa maadaama adiga laftirkaaga aad mar ahayd macalimad ee ardayda wax barta caqabadaha ugu waaweyn ee markaasi ka dhex jira goobaha waxbarashada goobaha waxbarashada oo wadanka Soomaaliya ku dhex yaalo caqabadaha hadda ugu waaweyn waxay ahayd oo qaasatan gabdhaha ayagii oo aanan ku baraarugsanayn fursadaha ay haystaan waxbarashada lagu sheegayo ma ahan jaamacad oo kaliya waxaa jiro xirfado gacmeed waxaa jiro kursooyin gaagaaban ee gabadha ay faa'iido u leedahay ay wax ku qarsan karaan caqabadaha kale oo jiro ayaa waxay tahay si uu qofkii iga horeeyay colorkii iga horeeyay oo u sheegaba gabdhaheena Soomaaliyeed waqti hore bay guursadaan ayagoo aad u yaryar oo still markino 20kii aan gaarin ay dhowr caruur ah hooyo u naqanaysa caqabada marka gabadhaas haysato number 1 waxa weeye waxa laga yaabaa in lagu furay caruurta oo badana statistically baartay malahan laakiin furiinka intaan arkay aad buu badan yahay waliba qaasatan gabdhaha dhalinyarada ah waxa laga yaabaa gabadhan inaynan haysan fursad caruurta looga hayo
oo xanaano carruurtii ah iyo fursad ay wax ku barato programmo gabdhaha runtii looga faa'iideynayo gabdhaha khaasatan oo aanan helin fursad ay hore wax u barteen hadda barnaamijkan bar amba baro waxay siinaysaa fursad gabdhaha iyo wiilashaba oo ka weyn da'dooda 9 jir ilaa iyo 16 sano jir taasoo u fududaynaysa waxbarashada asaasiga oo degdega ah ayay siinaysaa fursad dhalinyarada gabdhaha ah marka nasiib darro waxaa jirta marka gabadhii oo aanan helin fursado waxbarasho oo muhiim u ah horumarkeeda iyo gabadhii waqti hore carruur dhashay iyadoona helin fursad ay carruurtii looga hayo marka dhibaatooyinkaas oo dhan ayaa ku qasbaysa gabdhihii inay waxbarasho badan aynan helin waxyaabaha kale oo jirana waxa waaye wacyigelin dabcan maadada hadda STEM loo yaqaano oo science-ka iyo technology-da engineering iyo mathematics-ka oo la soo gudbiyay ayaa la isku dhahaa science doctoressada gabadhii hadda ugu horreysay waxay ka dhawaajisay inaynan jirin isheeg hadday jiraan ay yihiin hal haddaad fiirisid isheeg kuliyadda waxbarashada ee engineering-ka inay gabdhaha aad iyo aad ugu yaryihiin oo laga yaabo hal gabar mase 2 gabdhood inaad ku aragto technology-da sidoo kale science-ka oo dhinaca caafimaadka maasha Allah gabdhaha way ku badan yihiin laakiin saastay tahay fursado shaqana aad bay u yar yihiin marka wacyigeliska oo aan ku liidano fursadihii waxbarasho oo aan ku liidano iyo mujtamaca oo aan u hiilinaynin gabadha markii la guursado ee awlaad dhasho niyadda ayaa laga jabinayaa waxaa laga dhaadhicinayaa inay ilmahaas ag fadhiisato bal waxaa loo baahan yahay markaas inayba hesho sabab ay wax u barato sabab ay wax ku qabsato marka caqabadooyinkaas oo kalena waxaa looga hortegi karaa gabdhihii oo fursadahan hadda barnaamijkan bar amba baro kaleetood loo sheego wacyigeliska qofkii ku nool gobolka Banaadir iskuulaadka Banaadir oo dhan way kala xiriiri karaan hay'adda Save the Children ayaa implement gareynaysa USAID-ka iyo Creative iyo annagoo dhan la wadno qofkii ku nool isheeg Hirshabelle sidoo kale anagana la soo xiriiri karaan dadkii kale todo ku nool isheeg maxaa la dhahaa Jubaland iyo South Western sidoo kale marka fursadaha jiro wadanka in aan ka sheekeyno ummadeenana aan fahansiino faa'iidada ay u leedahay inay tahay fursadii labaad oo noloshooda ay uga faa'iideysan lahaayeen waad mahadsan tahay waxaan soo dhaweynaynaa Naciima ma jiraan caqabado jaamacadaha ama iskuulada gabdhaha ay kala kulmaan oo gaar u ah xagga oo waxbarashada jaamacadda soo maahan caqabado badan yani way dhici karaan oo ama wayba jiraanba oo xagga gabdhaha oo kale inay kala kulmaan xagga daraasadaha jaamacadaha caqabadahan isdhigi karo oo mostly gabdhaha way wajahaan ayaa waxay tahay oo kale xagga macallimiinta oo kale oo laga yaabo oo kale xagga caqabad oo kale gabdhihi oo kale inay kala kulmaan sida mostly hadda waxaan aragnaa gabdhaheena oo kale marka loo fiiriyo xagga marka imtixaanaadka la yiraahdo waa caqabada ugu weyn aan dhihi karo way kala kulmaan xilligan imtixaanaadka waayo gabdhaheena mostly dadaal sida badan ma bixiyaan waxaa laga yaabaa oo kale in macallimiinta qaarkood oo kale wax markaasi xiriir oo kale inuu dhaxmaro soo xiriirkaasi meeshaas inuu caqabad ka imaato oo ah in gabadhii tusaale oo kale macallinkii oo dhaho soo markiskaasi oo kale waan ku siinayaa adigana maxaa la yidhaahdaa inaan si gaar ah ama si gooni ah oo kale ah meel isku aragnaa taasi waxaad si toos ah inaan usii yani intervention ugu sameeyo ma rabi laakiin waa caqabad guud mar walba xagga gabdhahaasi yani haysta ani ahaanteyda caqabadaas ma dhihi karo macallimiinta qaar inaan aad aan ugu saaraayo oo midaas waxaa waaye dumarkeena ama ardaydeena gabdhaha ah mar walba dushaas eedaas u saaraya oo ah in iyaga laftirkooda halka iyaga isdhigeen oo daas caqabada kale oo markaas anaga ahaanteena ama gabdhaheena dumarka ama jaamacadda wax ka barto oo kale kala kulanno ayaa waxay tahay
tusaale oo kale gabadhi waxaa laga yaabaa gabar maasha allah active inay tahay maxaa la yidhahdaa maamulkii ama macalimiintii qaar oo kale gabadhii waxaa laga yaabaa inay ka helaan ama ay damcaan oo kale gabadhii haddii yaraa ku adkayso ama ay diido in markaasi oo kale xoogaa goodin camal in loo isticmaalo oo kale la yiraahdo maxaa la yiraahdaa so natiijo baa kaa maqan ama wax noocaas oo kale cagajkuleen oo kale traits oo kale gabadh in loo isticmaalo waa caqabadaha ugu badan oo asdhigi karo ugu adag yani gabdhaha ay ku challenge garoobaan waad mahadsan tahay haddii aan dhinacaa iyo taleefanada u leexana dhegeystaha ku jira halow dhegeyste waa kaa qaada soo dhawow magacaagii iyo halkaad naga soo wacaysiiya aragtida barnaamijka haye soo dhawow bal aragtidaada barnaamijka aragtiyada barnaamijka soo hadlaya ninka gabdhaha waxbarashada hadda ka hadlo horta aad bay ugu fiican yihiin gabdhaha waxbarashada waynana naga maskax fudud yihiin laakiin taas mid aan dheerna waxay tahay anaku go-aankan go-aankooda wuu fudud yahay laakiin anaku waa go-aan adag nahay oo waan ka fiirsanaa markaa go-aan gaarin laakiin isaal mid aan dheerna waxay tahay guurka markii la guursanaayo ayay ku degdegaan waad mahadsan tahay barnaamijkeennii ayaynu dhegaystayaal weli ku guda jirnaaye toores maftuux soo dhawow yaa habboon ayaad is leedahay oo ay tahay in gabdhaha soomaaliyeed ay ku daydaan qof nool ama qof dhintay oo tusaale u noqon karaa waa mahadsan tahay farxiyo tusaalaha horta wuxuu muhiim qofkii dhintay macnihi memory ka haray oo kaleeto qofkan oo role model u yahay qofka labada dhinac baan aaminsanahay qof nool iyo haddii qof tagay oo kale uu role model u yahay ama wax fiican uu ka tagay in laga daydo sida qofkan hadduu hoggaan soo ahaa ama soo muuqday bulshada ka noqday waxay baraarujin u noqonaysaa qof kasta oo akhrisan karo wuxuu ka tagay memorygu ka tagay oo ugu dayanayo marka labada dhinacba waxaan dhihi karaa qofka nool iyo qofka labada baa loo dayan soo dhawow naciima adiga yaad is leedahay tusaale wuu noqon karaa tusaale wuu noqon karaa okay marka la yidhaahdo yani qof tusaale oo kale wuu noqon karaa ama role model in laga dhigtaa qof dhintay iyo qof noolba wuu noqon karaa mostly qofka hadduuba dhintay wuu dhintay laakiin mar walbo waxaa waaye waxaa haraayo yani qofkaasi raadadkii oo markaa uu ka tagay ama xusuusihii ama hadduu qofkaasi buugaag uu qoray oo kale wax badan oo markaasi information ama cilmi badan uu ka buuxo oo kale dhan walba ha ahaado qofkaas oo kale in lagu daydo oo kale marka ku dayashada markii la dhahayo qaab badan ama noocyo fara badan ay noqon kartaa mid hadda hal meel ah ku halbeegi karo ama aan dhihi karo halbeeg noocaas oo kale ah baan saaraya oo qofkaas noocaas baa loo يعني رول موديل ها laga dhigto aan dhigi karo ma jirto laakiin qofkii markaasi yani wanaagsan nafsadiisa ay wax u qabteen soo demo qofka asiga nafsadiisa wax u tara wax u qabtaa baadana maxaa la yiraahdaa familkiisa iyo bulshadiisa iyo qarankiisana wax u qabtaa marka hadduu qofka qof noocaas oo kale uu yahay wax badan markaasi bulshada contribution fara badan uu ku leeyahay oo wax badan maxaa la yiraahdaa oo faa'iido u leh bulshadaasi ay ka qaadan karaan ama ka shidaal qaadan karaan uu yahay wax badan oo motivate garay karo in markaasi role model oo kale laga dhigto oo kale wax tusaale laga dhigtaa hadda ugu weyn ee u qurux badan ayaa waxay tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inaan markaasi asiga aan ku dayano any yani attitude ama behavior or belief asiga uu lahaa inaan apply gareyno mise aan dabaqno so haddii yani cibaankeena oo ah dumarka ama hablaheena oo kalena inaan mostly haddii xitaa markii loo fiiriyo hooyooyinkeena soomaaliyeed waxa weeyaan haddii xitaa aysan wax baranin mar walbo waxa waaye waa kuwa mar walba dhaqan fiican oo markaasi positive gudbinaya waaye iyaga laftirkooda ilaa xad dhaqamada markaasi ay isdhihi karaan way wanaagsan oo kale inay markaasi familkooda ama hooyadoodii ay ugu daydaan daas isdhihi karaa titores sacdiye soo dhawow adiga aragti ahaan yaa habboon ayaad is leedahay gabdhaheena way ku dayan karaan imaanaysaa dayashada guriga haddii ay haystaan hooyo wax baratay aabbo wax bartay walaal ka weyn oo wax bartay dabcan reerkii meeshaas ayay ku dayashada ay ka imaanaysaa gabadhi markay weyso hooyadeed oo
waxbaratay walaasheed mase dadka jiraankooda ah oo waxbartay waxay fiirinaysaa dadka kale dood ay ka maqli karto social mediaha mase mediaha kale hadda radioga aan ka hadlayno taariikhdii oo Soomaaliyeed oo laga hadlayo hadda dad weyn oo maasha Allah ku dayasho mudan oo badan ayaa noo buuxan Allah u naxariistee maamo Ditoresa Xaawa Cabdi oo ahayd runtii qof xushmad iyo qadarin mudan taariikhdeena Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed waxbartay gabar Soomaaliyeed Allah u naxariisto oo waxbaratay oo ummadeeda u adeegaysa waxaa kaloo ka mid ah Ditoresa Marian Qaasin oo ahayd wasiiradii hore waxbarashada Ditoresa Fawziya oo hadda ah wasiiradeena waxbarashada Ditoresa Hodan Ciise oo ayadana ku takhasustay economics-yada ahaydna xaaskii madaxweyne Cabdi Weli Gaas madaxweynihii Puntland marna ahaa prime ministerka Allah u naxariisto Hodan Naaleeye waxaan leenahay run ahaantii gabdho iyo hooyooyin Soomaaliyeed ummadana wax u qabtay wax bartay mudan in lagu daysto marka waxaan u baahanahay in looga faa'iideeyo gabdhaheena fursadaha ay haystaan hadda annaga macadka Hanwa Academy iyo Somali STEM Society waxaan u suubinay program la yiraahdo STEM Sisters oo loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo taqasuskoodu uu yahay science-ka technology-yada engineering iyo mathematics-ka ay ku helayaan in mentoring lagu siiyo lagu coach gareeyo lagu caawiyo sidii scholarship dibadaha ay u helaan si ay fursado shaqo ay u helaan tababaro kala duwan ay u helaan dadka oo ahaantii fursadaas uga faa'iideynaa waa gabdho kale oo Soomaaliyeed oo runtii waddanka gudihiisa dibadiisa ku nool marka waxaan u baahanahay dadkeena khaasatan gabdhaheena waxbartay inaanan hilmaamin ay waddankana ay ku xiran yihiin aniga dibadaan wax ku bartay dadkii dagaalada ku korayaan ahay oo dibadaha ka aaday markaan wax bartanay waddanka ayaan ku soo laabtay waad mahadsantahay Dr. Sacdiya waqtigan waxay kuu soo laaban doonaa insha Allah dhegeystaha xiga haddii aan siino telefoonka soo dhawow dhegeyste magacaagii halkaad naga soo wacayso Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام soo dhawow magacaagii halkaad naga soo wacayso محمود سوري ka soo wacay gaar ahaan degmada Cabdicasiis kaafaa maxaaro haye aragtidaada barnaamijka inaad argacday waxa waaye isha kaalmaha waa gabdhaha aad u weyn yani waxbarashada aad u weyn boqolkiiba 95 waxbarashadana ayagoo wadaan dhax ay ka baxayaan ma adiga dhibaatooyin badan u horseeday waxbarasho la'aanta maxaa yeelay ayagoo wax baranayo ay isha xal lahaa shukaansi iska gelayaan waa la iska wadanaa marka waxbarashada aad u weyn boqolkiiba 95 gabdhaha hoose oo hooseysa waad mahadsan tahay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan isla mareenay Dr. Sacdiya soo dhawow ma noo sheegi kartaa xaalad haddii aynu gaarno gabdhaheena oo dhan ay wax baran karaan natiijada ka dhalan karta haddii gabdhaheena ay wax bartaan maxay tahay bulshadeennana sidee ayay u ekaan lahayd markaas waxaan aaminsanaan lahaa in aan geeska Afrika iska daay inaan ugu wanaagsanaanay adduunyada hore u mareen inaan ka daba tegi lahayn waxay haddana inaan xasuusiyo gabadhii ugu horeysay oo Afrika ka naqatay pilot waxay ahayd gabar Soomaaliyeed umadeena dad waxaan nahay very entrepreneurial ah dad runtii firfircoon laakiin gabdhaheena yara waxaad u malaysaa sanadyadii dambo in aanan fursado badan aanan looga faa'iideynin marka waxaan aaminsanahay waddanka horumarkiisa waxqabadkiisa waxay ku xiran tahay gabdhaheena oo runtii laga caawiyo sidii ay horumarka dhinaca waxbarashada ay kaalin weyn uga heli lahaayeen si ay ummadooda wax ugu qabtaan waad mahadsan tahay soo dhawow Dr. Maftuux gabdhaha way ku yar yihiin inta badan waxbaridda ama in barayaal ay noqdaan maxay tahay sababta farxii aad aan wanaagsan tahay horta ani barra waxaan ahay markii aan bilaabayay qabadaha kala kulmay ahayd ama jaamacadaha ahaato ama iskuul ahaato
marka aad tagtidbo ama aad geysatid CV ama qof ku sooco waxaa lagu dhahaa kaas waxaan weydiiyey su-aalaha weydiiyey waxaa ka mid ah maxaa sababay inaad qaadatiin mostly ragga oo aan dumarka qaadanaynin marka waxay dhaheen waxaan fiirinaa xilliyada gabdhaha ay ku bixinayaan jidka macalinimada aad u yar wayna ka xishoodaan markii ay bilaabayaan waxa sababay marka waxaan dhihi karaa waa dumarkeena oo markii ay bilaabaan ama ay isku inay wax baran aanan ku fiirinaynin hore usoo sameynin ragga xoogaa waxay nooga fiican yihiin xoogaa cabsidee ku yar waxay sameeyaan waxyaabo ka badan laakiin waan awoodnaa haddii aan anaga isku dhiirigelino inaan sameyn karno ama aan istaagi karno tusaale waxaan ka dhigi lahaa jaacadaha balka dhiganayaan dumarka gabdhaha galaasyada markii loo diro la dhaho soo diyaariya prestation ama soo diyaariya group loo diro gabadhii ma qaadanayso inay prestation soo jeedisay wiilashii ugu xeleeda idinka soo jeediya iyada laga yaabo inay soo qortay iyo xaqlan ay soo diyaarinaysay laakiin wiilkii wuxuu istaagaa stage ama meesha istaagaa qaadanayo soo bandhigaa marka waxaa sababay dumarkiina anaga waxaan noqonay behind the wax walba diyaarina waa sameynaa laakiin waxaan nahay gadaalan joognaa marka waxaa badanaa boqolkiiba 10 ama boqolkiiba 20 dhihi karaa inaan ku noqono barre dalka keenaybo caqabad ha ahaato bulshada dhankeeda laakiin waxaan u badinaa caqabad nafteena inaan ku baraarujino oo la dhaho wax walba ama gabar walba oo isku dayda inay wax bar ama ay noqoto baro waa sameyn kartaa dadaalkan ama waa awoodaa inay hor istaagto ka cabsan hana xishoonin indhahan laba indhaa ku hortaagan ka badan ma ahan isku day inaad marka waxaan dhihi lahaa anaga baraarujinta u baahan nafteeda inaan ku bilaabno Torres Sacdiya soo dhawow maxaad fariin ah oo aad u diri lahayd waalidiinta haysta fursad ay ilmahooda wax ku baraan balse ku guul dareystay in gabdhaha ay wax baraan waxaan dhihi lahaa dabcan aniga hooyan ahay hal gabra ii joogto ilaahay baa u joogtaaye waxaan dhihi lahaa waalidiinta Soomaaliyeed oo haystaan fursad ay ilmaadooda especially qaasatan gabdhaha ay wax bari karaan oo ogolow gabadhaada markaad wax bartid kama shalayn doontid laba mid bay naqani inay macluumaad ka naqato gurigeeda ama ummadda Soomaaliyeed iyo gurigaagiiba ay wax u qabato waayo gabadha way ka naxariis badan tahay wiilasha ummadeenana way og tahay runtii so waan u baahannahay in aan helno waalidiin fahansan horumarka naftooda gabdhaha ay dhaleen iyo ummadooda intaas haddaanan helin waalidiin aan fahansanayn waxaan ku sugannahay runtii inaan dib u dhacno marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta hurdada ka kaca fursad haddii gabadhaada ay jirto 10 sano haddii gabadhaada ay jirto 20 sano haddii gabadhaada ay jirto 1 sano fursad ayay haysataa hadhihinina gabadha shaqadeeda waa jiko shaqadeeda waa guur gabadha waa qof ilaahay abuuray aqoonteeda iyo horumarkeedana waa guushaada saas baan dhihi lahaa waalidiinta Soomaaliyeed ugu dambeyn ma jirtaa fariin gaar ah oo aad la wadaagayso gabdhaha iskuulada aada kuwa iskuulada seegay iyo sidoo kale waalidiinta waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo heli karaan fursad ay wax ku bartaan waxaan dhihi lahaa barta oo haddii iban ay kugu adag tahay waxbarashada waxaan xasuustaa aniga waxaan wax ku bartay Europe qaxooti baan ahaa luqad cusub iyo environment cusub ayaan imaaday anoo awoodo inaan iska jiifto oo ceer aan qaato ayay damiirteedii siin weysay waxaan xasuusanayay gabadhii Soomaaliyeed oo maanta ku nool Soomaaliya oo aan fursad aanan haysan waayo waqtigaas waxay ahayd waqtigii dagaalada in aan madaxeeda wax u barto hooyadii i dhashay waalidkii koriyeen inaan madaxooda u barto oolaada ilaahay siin doono inaan madaxooda u barto ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka dhanba waayo waxa waaye qofka bini'aadamka asiga kaligiis iskama noolaan karo wuxuu ku tiirsan yahay mujtamacana qof kasto haddii aynan kaalinteeda aynan ka cayaarin mujtamacaas malaha marka waxaan dhihi lahaa gabadhii fursad leh anigoo Yurub joogo oo awood inaan ka
faa'iidaysan fursadda waayo dad badan oo igula noolaa qaxootiga ayaan ka faa'iidaysto iyadoo baraf jiro iyadoo qabow jiro iyadoo waraqyada qaarkood idhibaysa inaan baskii aan raacayo qarashkiisa ay ugu badan tahay ayaan sacrifice suubiye haddaan aniga aan suubiye iyadana inay suubin karto ka faa'iidayso ma ogaan kartid fursadda aad haysatid maanta inaad beri heli doontid fursaddii aan yurub ku helay sanadyo ka bacdi dadkii facayga ahaayeen fursaddaas way ay waayeen marka waxaan ku dhiirigelin lahaa gabadha soomaaliyeed inay u barato mustaqbalka aayaheeda iyo horumarinta ummaddeena soomaaliyeed waad mahadsan tahay dr sacdiya naciima soo dhawow fariinta ugu dambeysa ee aad diraysid mahadsan tahay farxiya intaan fariinta aanan u gudagelina waxaa rabaa su-aal hadaayaheedina waxyar aan ka taabto oo ah in dumarkeena ama hablaheena aan ku yarna xagga markii loo fiiriyo baraha ama xagga jaamacadda oo kale inaan macalimiinta badan ay ka fiir yihiin xagga dumarka caqabadahaasi maxaa keeni kara aniga sidaan isleeyahay mostly waxaa waaye waa duruuf iska neejar oo yani caqabad jirto oo la aaminsan yahay xagga maamulka duu ahaan lahaa in markaasi meeshaas institutionkaasi wuxuu yahayba hadduu yahay mid public iyo mid private sectorska in maxaa la yidhahdaa gabdhihii oo kale mostly oo kale sida ninka ragga oo kale loo heli karo in iyada aan loo heli karin waxaa laga yaabaa gabadhii maxaa la yidhahdaa xaaladaheeda ama xanuunkeeda mar walba duruufteedii aad ay u badan tahay in maxaa la yidhahdaa waxaa laga yaabaa in gabadhii ay dhasho oo kale hooyo ay tahay qoys ay leedahay oo kale in sidaas macnaa caruurteedii ama xaaladaheedii kale ay kasoo badin weyso sida marka iyada fursadda loo heli karo ninka ragga oo kale ah markii lala babadhigo gabadha in markaasi loo heli karin sidaas ajligeeda oo kale in markaasi xoogaa mideeda kale caqabad kale waxaa isdhihi karaa gabdhahina laftirkeena inay iyaga is-aaminsanayaan oo isdhahaan oo kale bulshadaas oo kale ama ardaydaas faraha badan inay soo dul istaagaan waxa markaasi iyaka ay barteen oo kale inay ka dhaadhiciyaan inay xoogaa oo kale saliidid oo kale inay u gasho okay fariinta kale waxaa rabaa sida hadaaya oo kale aa soo sheegto oo kale mashruuc waxaa jira oo ah bar ama baro sida dowladeeni kacaanka 1974 ilaa iska dhaaday 72 markii la qoray farta Soomaaliga ilaa 75 waxa way dawladda kacaanka intay jirtay waxay ahayd mashruuc waxaa jira oo ah ololaha horumarinta reer miyiga kaas oo ka bilowday magaalada Muqdisho ama Xamar ilaa markaasi from waxa way gobol to markaasi ilaa tuulo mashruucaasi oo markaasi laga hirgeliyay oo ah bar ama baro oo markaasi hirgeliyay madaxweynahaasi markaasi joogay jaalisiyaad marka maxaa la yiraahdaa xiligaas oo kale ama mashruucaas oo kale ah in hadda oo kale la keeno inkastoo walow xiligaas baahida markaas loo qabo ay aad ay u badneed percentage ugu badan laakiin had percentage-keedu aad u yar yahay mashaariic noocaas oo kale ah in caruurtii oo kale looga faa'iideeyo hooyooyinka xitaa guryaha jooga oo kale mashaariic noocaas oo kale looga faa'iideeyo sida doctor sida daaye markaas ay sheegto oo kale ilaa goboladan Hirshabeelle yani ay ka fuliyeen ka implementing ay ku sameeyeen mideeda kale si guud oo kale anako markaas aan toos aan u focus gareynaynin xagga dumarka si guud ba dhalinyaro markaan aan oo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa wuxuu ku dhahay mar walba dacfi wuxuu naga abuuray qaab dacfi oo kale ah haddana maxaa la yiraahdaa haddana waxay noqonaynaa kuwa markaasi min bacdi wajacala min bacdi quwwa haddana naga dhigay dad markaasi haddana awood leh marka intaasi intaan ku guda jirno waxayna nahaynay yani dad markaasi oo dhalinyaradooda xilligooda markaasi aan ka faa'iideysano in markaas waqtigaas aan heysano dhalinyarta aan nahno gabdhaheena inay ka faa'iideystaan ay wax bartaan tan kale mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu aayadaha ugu horeeyay quraanka uu ku soo dejiyay ayad iqra bismi rabbikal ladhi khalaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waxaa arkaysa shantaas aayadood ugu horeeyay inay ka hadlayaan wax aqrin wax qoraal cilmi aqoon inay ka hadlayso marka diinteena aad u dhiirigelisayba in yani dumarkiina ay wax bartaan aysan loo fiirinin dhaqan ama waxyaabo noocaas oo kale aysan loo eegin laakiin gabadhii iyo laftirkeedu xitaa wax badan ay sacrifice iyada nafsadeeda ku sameeyso ay dadaasho wax badan yani ay try gareyso inay wax barato goobihii waxbarashadii iyo meelahaas ay ka qayb qaadato dr maftuux soo dhawow aragtidaada ugu dambeysa ee aad dirayso aada ma santa farxiyo aada ugu dambeysa iyo waxaan rabaa baraarujinta ugu dambeysa horta naftaada markaad wax
aan si qaas inaan ula hadlo gabdhaheena kow naftaada markaa wax tartid ayaa bulshada wax tari kartaa kow ka bilaab naftaada markaad wax baratid inaad ku samayso observation ama dib ugu noqotid waxaa baratay bulshada usoo jeedin aadan guriga kuma noqonin ama inaad reer yeelatay aadan isla reer yeelatay reerkaaga diirada saarkii labadaba waa samayn kartaa waa awoodnaa waynu indhaawo haddii la fiiriyo awooddoon naagaha maanta marka la fiiriyo anagaa ka awood badan dulqaad haddii la fiiriyo anagaa ka dulqaad badan haddii aad awooddo gurigaas inaad dhaqdo ama aad gurigaas ilaashato waana awooddaa bulshadii inaad wax u gudbiso haddii gurigaaga qurux badan yahay banaanka waa geen kartaa wax walba aad gurigaaga kusoo bandhigto marka inaan wax baranay aan guriga kula noqonin hooyo haddaad noqotay ma ahan inaad hooyo noqotay aad 24 hours cunugaas gacanta ku hayso 3 hours 2 hours bur waxay aad baratay inaad banaanka bulshada u geyso marka waxaan dhihi lahaa naftaada kow kalsooni bid aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa martida ee barnaamijka waxaa barnaamijka nagala qaybgelayay toddobaadkan aasaasaha hana academy Torres Sacdiya Siyaad oo markaasi agaasimo ka ah hana academy oo ah goob markaasi fursado waxbarasho siisa dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ahayd Dr. Maftuux Maxamed Cabdi oo baraka ah jaamacadda Jamhuuriyadda sidoo kale tana ah dhakhtarad ka shaqeysa magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ahayd Naciimo Cumar Maxamed oo ah ardayd wax ka baratay jaamacadda Muqdisho isla markaana ah sanadkii ugu dambeysay sidoo kale tana u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada guud ahaan dhageystayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni toddobaadka soo socda waxaan barnaamijkan uga hadli doonaa caqabadaha haweenka ka haysta dhanka cadaaladda waxaana markaasi ku faaqidi doonaa sida haweenka Soomaaliyeed ay cadaalad u heli lahaayeen inta barnaamijka xiga aadan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo